السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan saaka halkan aan isku yeeray warbaahinta dibadeedii mid gudahaaba waxa weeye xil aniga isaaran oo ah inaan ka hadlo dhibaatada ka jirta tacliinta dowlad goboleedka Puntland oo bisha 26 oo ka hadlay mudane Abdullaahi Maxamed Xasan wasiirka tacliinta Puntland oo ka hadlay kaga eed sheeganayo dhibaatada ka haysata wasaaradda tacliinta dowladda federaalka oo ka soo horjeesatay inay ka wada shaqeeyaan sidii horeba uga shaqeyn jireen sharciga iyo dastuurkuna ogol yahay nidaamka waxbarashada dalka oo Puntland ay kaga horeysay hirgelintiisa dowladda federaalka iyo dowladaha kale oo xubinta ka dowladda federaalka waddo 20 sano ku soo shaqeynaysay manhajna ka dejisatay waligeedna ceeb ka imaan aqoonsina u lahayd dowladaha dariska iyo dowladaha kale shahaadada lagu aadi jiray jaamacad laga soo baxay heer sare lagu gaaray ilaa PhD lagu sameeyay laguna shaqeeyo had dhibaatadaas wasiir Abdullaahi wuxuu ka eed sheeganayay wasiirka isaga u dhignaa oo dowladda federaalka ah mudane Abdullaahi Goodax Barre Bresleyska uu sameeyay oo ahayd inay dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ay iyagu xaq u leeyihiin inay maamulaan nidaamka waxbarashada oo deegaanka iyagu ay degan yihiin waxay dowladda iska kaashanayaan oo isku heshiisiyeen oo dastuuriya mooyee inta kale inay iyagu maamulaan taasoo ah wax waafaqsan nidaamka federaalka oo adduunyada ka jira oo inagu aan kaga dayanay nidaamka federaalka inagu meelaan lahaan jirin dowlad qabaayil baynu iska ahayn dowladaha kale oo dadkii markaa wadanka qabsaday baynu kaga dayanay saldanooyin baa jirjiray meelaha qaarkood oo Puntland ay kamid tahay qayb kamid ah intaas baa inaga jirtay marka nidaamka federaalka aan qaadanay baa hogaya in dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan saas dowladaha federaalka oo xukuumadda dhexe iyo xukuumadda kale mesela haddaan u soo qaadano waxaan ka hadli doonaa in Soomaaliya ay cidisha kaga jiro ay qaadatay nidaamka federaalka 2004 dabadeedna lagu qeexay oo lagu ansixiyay shirweynihii 2012 August 1 lagu qabtay Muqdisho oo ay kaga qayb galeen Soomaalida oo dhan oo lagu muxuu ahayd dabadeedna lagu daabacay dastuurka federaalka oo ku meel gaarka kaas weyn nidaamka federaalka asaasiga ah oo dalka ninkii shaki ka jiro halka horta ka eeg haddii aad dastuurka qodob u eegtid qodob baan hadda tusaya reference ah qodobka saddexaad paragraph saddexaad wuxuu sheegayaa af Ingiriisi hadii lagu akhriyo iyo af Soomaaliba wuxuu sheegayaa The Federal Republic of Somalia is founded upon the fundamental principles of power sharing in a federal system waxa weeye nidaamka federaalka ah oo jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye mid ku qotoma wax wadaag oo awoodaha lagu qaybsanayo oo lagu wadaagayo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ka xubnaha ay awoodaha ku qaybsanayaan sida uu kala habboon article kale oo kaas si qeexaya ka si qeexis badan baa soo socda article dubious ah oo dadka qaarkii cuskado laakiin aan dhamaystirkoodii la fulinta ahaa iyo sidii loo fulin lahaa aan waligeeda la gaarin waxa kamid ah article-ka 3aad qodobka 6aad oo dhahaya dowladda dhexe waa inay ay dhaqan galisaa nidaam curriculum oo standard ah oo all muxuu ahaade wadanka oo dhan ah oo lagu dhaqmi karo taa macnaheedu waxa weeye qof intuu meel fariisto wasiir baan hay federaal ah ana wax soo dejinay iska sameynaya oo aan wax lagu shaqeyn karo ahay nidaamka federaal waafaqsanayn oo qodobada kale oo dastuuriga ah oo arintaas hordhaca oo ah oo waxaan afkiisa lagu yaqaan prerequisite aan la soo marin oo aan dhamaystiran intuu qaato kama dhigan karo cuskasho oo ku meel mariyo oo dusha kaga maro kuwa kale isagoo awood dowlad dhexe oo markaas xagga caalamka iyo xagga resource-ga ka badan kuwa dowladaha kale qaarkoodna ay gacanba ka rabaan kuwa aan dakhliga lahayn inuu ku amarku taaglayo xaq uma leh in la helo wax lagu wada shaqeyn karo oo national framework ah waxay subject u tahay ama ku xiran tahay in marka hore ay soo dhamaystirmaan waxyaalaha
laga rabo inuu dastuurku qeexo oo caddeeyo qaarna lagu noqdo qaarna si fiican loo qeexo dastuurkaasoo hadda saa u laadlaada oo aan cagahan dhulka ku hayn meel hawaa laadlaada baalalna aan lahayn kuwaas oo ah saldhig qodobada aan soo sheegi doono oo ugu horeeyo qodobka 134 qodobka ah oo dastuurka wuxuu sheegayaa oo magaciisa lagu yiraahdo dib u eegid iyo fulinta guddiga xorta ah oo shanta ah oo dawladdu magacowday dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalkana ay min xubin ku lahaan lahaayeen oo aasaaski ah kuwan baarlamaanada ka socdaay wixii ay ka yimaada aasaaskaas dawladaha xubinta ka ah ergada ka socota xabadda ka socota shantan hadda Soomaaliya israacsan iyo shanta dawladda dhexe xageeda ka soo magacowday tobankaas waxay keenaan oo ku soo heshiyaan oo daniya state ka muuqanayaan baa lagu saleynaya haddii kuwa laga boodo waxa ka socdaay waa meel aan hadda cidlaa bay ku dhacayaan hadhow sida hadda ay ku socoto way dhowr jeerna waan ka hadlay anigu maxaa weeye dawlad goboleed kasta ama dawlad xubinka dawladda federaalka waa in hal delegation soo magacowda oo ka qayb gala si uu ilaaliyo dantii dastuurka meeshii lagu noqonayo dib loogu noqonayo halka bedelayo dantii muxuu ahaa state iyo federalism systemkii inuu muusan wax loo dhimayn iyadoo aad loo tuunsan yahay meelo badan ay ka caddahay in la jarjarayo oo hadda ma hadba lug lala baxayo si ila marka dama iyadoo aan taayir lahayn dhulka ugu dhacdo la yiraahdo maxaan ii sheegay ma shaqaynayso in taas la raadinayo laakiin taas hadda dad iyo dadba waa u leedahay dastuurkaas waxyaalaha requirementiga oo laga rabo waxaa ka mid ah in haddii ayan taasi ku jirin oo tacliintii ay ka mid tahay waxa laga qeexayo qodobkaas sare oo ka mid yahay sida loo maamulayo baa la rabaa dawladda dhexe iyo dawladaha federaalka inay isla eegaan waxa ugu habboon iyo sida ugu habboon oo loo maamulayo tacliinta iyadoo nidaamka federaalka la ilaaliyo taasoo ah dawladda laga daydan ay jiraan ayna tahay duruufaha gaarka ay kala leeyihiin dawladuhu dawlad baa waxay tahay dhul agricultural beeraley ku taala ama u badan duruufo gaar ay leedahay tacliin gaar ay yeelanaysaa dawlad baa waxay tahay xoolo la kaliya oo aan beer lahayn duruuf gaar ay yeelanaysaa dawladaha waxay yihiin beeraley iyo xoolo isku jira kuwa waxay leeyihiin beero iyo kalluumaysi iyo beero natural sida xijida iyo oo iska natural iyo kalluumaysiga duruufo gaar ah kala jira marka duruufaha dartood si la isku wada faajiyo in mar inta la isugu yimaado waxa la meel dhigo weey oo lagu wada shaqeeyo waa laga maarmaan marka muxuu dhan maxaa u ah waxa la gashado oo lagu dhamaystiro dastuurka hadda laada baa shuruud ah inuu dhamaystirmo framework la dhisi doono kaasa sharti ah hadduusan dastuurkaas dhamaystirmo framework uusan jirin frameworkaas hadda nin intuu ku amar ku taaglay awood ku sheegtaa ma jiri karo tan kaliya oo lagu shaqeyn kara waxa weeye waxaan iyadu sharti ku xirayn oo sida qodobada soo socdo kale hay'adda dastuurkan waxa dhamaystirkiisu waxyaalo badan baa ku xiran oo waxa weeye marka ku xiraado waa in loo waafajiyaa dastuuradii kale oo dawladaha federaalka hadhow midna dusha kama mari karo la isu guraa guddi loo saara aqoon-yahana independent ah hadda international expertise oo dawladda federaalka yimaad lagu daraa waxaasoo dhan waa duruus u baahan dadka in laga wacyigeliyo dawladaha xubnaha ka ahna dawladaha wasiirada ragga loo dhiibayo inay waxaas ay yihiin dad ka shaqeyn karana marka horeba loo xusho ee qof isagu intuu ku barbaaray waqtiyo ina ka horeeyay oo siyaasad hore la ahaa mar dawlad civil ah oo muxuu ahaay unitary iska ahayd isuuladuna ayaan badnayn maamulana ayaan jirin degmooyinka dhan la soo xiray kumeelka kulligood hal magaalo la isugu yimi iyo waqtigii 20 sano ah oo ciidamo u talinayeen oo iyagu maartay wareegta ku maamuleen wadanka raggii ku koray ama iskuulada ka baxay wixii maskaxdooda ku jiray lagu maamuli karo waxa loo baahan yahay dadka hadii iskuul dib loogu celiyo waxaan marka u yeerayaa dawladaha oo dhan ama ha ahaadeen mid state xubinka ah dawladda federaalka ama ha ahaadeen dawladda dhexe in shuruucda lagama maarmaanka oo saldhiga oo federalismka loo wada hogaansamo meel kasta ay kaga yaalin oo dastuurka ku qoran in loo wada hogaansamo oo la raaco article-ka 50 principle of federalism in the Federal Republic of Somalia yani mabaadi'da federaalka oo ku qoran article-ka konton ku qoran oo ka bilaabma paragraph A ama ba ama ba baka u rabtid ila G ila meesha uu ku dhamaado مثلا ba markaan u raaco case-ka Puntland oo kale waad ogtihiin Puntland 20 sano ay jirtay imtixaanadii la qaaday mid la qishay iyo mid la xaday iyo mid eex ka dhaxday
iyo mid aan curriculumka intii dambe oo dhan sanooyinkii dambe ilaa 2009 curriculum israacsan baa lagu sameeyay 2009 wixii ka dameeyay baa lagu sameeyay dawladda dhexe rag ka joogay oo wasiirada markaa ka ahaana ay la qaateen ayaa ka jiray dastuurku wuxuu qorayaa article-kaas wuxuu qorayaa paragraph-kiisa ba wuxuu qorayaa power is given to the level of government where it is likely to be most effectively exercised awoodda waxaa la siinayaa heerarka dawladeed meesha sida ugu habboon looga fulin karo marka maanta haddaynu joogno awoodda educationka ama tacliimta meesha ugu habboon maanta laga fuliyaa Soomaaliya oo dhan waa Puntland taas cid inkiri ka dhama jiro shakina kuma jiro in iyada laga shaqaal qaato way dawladaha kale oo hadda federaalka noqday oo iyagu aan wali hirgelin inta halka ay Soomaaliya Puntland ay gaadheen gaarina waxaan ugu yeeraynaa inay war hore aan wasaaradda tagnayna anagoo senatorial kalana waan ku boorinay gacan siiya state-kaas inay soo gaaraan waxa yar wadanku waa hal meel dawladda dhexena waxa waajib ku ah wixii laga hormarsan yahay inay ka qaadato kuna dhaqanto ama inay furfurto hadba karaanigi ama sargaalkii qayb jooga intay tiraahdo isaga soo kac tiir la bax muxuu ahaa tan haduntee sida haddaba dhacday oo agaasimihii departmentiga imtixaanaadka oo muxuu ahaa wasiirka tacliinta dawladda federaalka oo qaato sabab taliya ka dhigtay intuu Puntland ka qaatay filisay marka waxa lagu filisay aan dawladda lacag dalka dhaxaysa waay marka waxa la aqbali karo ma waxa kale meesha ka maqan in lagu dhaqmo paragraph-ka G oo qodobka kontonaad wixii la isku qabto in si daacadnimo ah oo wada hadal ah oo tifaftiran looga hadlo oo looga heshiiyo maaha mid ku taag iyo anaa muxuu ahaay magaca ka sareeya dibadda laga ictiraafsan yahay maaha sidii meesha dalku soo wada shaqeyn kara raba wadankan meel fog baan ka keenay ilaa 1990 baan nidaam ku soo wadnay federation baa 2004 la qaatay inuu dib u noqdo ma rabno waa burburay nidaamka la isugu soo celin karaa waa midkaas kaliya cidii cilad ku ah oo aan la jaan qaadi karin dadka yay wareerin kulli waqti waa ka dhamaanayaa haddaba inta goorta intay ciwaaban isaga tageen waxa kale oo meesha ku jirta qodobka konton iyo koowaad oo ah sheegaya in heerarka dawladnimadu oo dalku wada shaqeeyo waxaan maleeyahay warar badan waa laga maqlay xataa madaxweynaha Puntland inuu leeyahay hal la wada hadlo hal la isu yimaado hal la wada hadlo maxaa laga wada hadlaya dan gaar ah oo state leeyahay laga wada hadli maayo mid gaar ah oo dawladda dhexe ay leedahay laga wada hadlo la iskuma bahayo awooda dastuurkuna waa qeexaya inta dib loogu dhamaystirmayo oo lagu noqonayo inta hadda taala ku filan hadda wax meesha loo socdaana waxa weeye xeerar salkeeda hadaan la wada hadlin xagee wax loo wada mas'uuliyaddan ayaa qaadaya cidda marka iyadu amar ku taagleynayso waxayna ku qeexan tahay qodobka 1 paragraph-kiisa koowaad ilaa 5 waxaa marka emphasis weyn saaran yahay qodobka 4 waxa weeye level heerarka dawladnimo oo dhan mid dawladaha xubinta ka dawladda federaalka ama dawlad goboleedka sida dadka afkiis u bartay xataa mid dawladda hoose ku jira dawladaha hoose ku jira waa inay ku wada shaqeeyaan sida dastuurku qeexayo iyadoo aan qolona ay awood sheeg iyadoo ay lahayn oo in iyada la siiyo ay sheegan iyadoo aan taasuna jiro sida hadda muuqata qodobka 54 oo isaguna qeexaya oo qodobada hore oo dhan dhamaystiraya waxa weeye awoodaha dawladaha federaalka iyo dawladaha xubinta ka ah ay kala yeelanayaan waxa iyo khayraadkaba waxay ku imaanayaan wada hadal dhexmara dawladaha xubinta ka dawladda federaalka iyo dawladda dhexe intaan sharci laga dhigin baa laga wada hadlaa marka hore markii laga reebo 4 dawladood 4 awoodood foreign affairs arrimaha dibadda difaaca xuduudada national markii la yiraahdo waa xuduudada waxa way badda iyo biriga iyo cirka iyo maaha in laga difaaco dalka gudihiisa wixii markaas carqalad ku ah ama maanta ku hariyadana waa ku jiraan waa difaaci dalka weeye iyo socdaalka iyo muwaadinimada yaa waddan ah waddanka iyo siyaasadda lacagta ma jirto barkashil Soomaaliya ma jiroba waxa forgery oo la daawacay baa dadka lagu dhacay wali meelaha wareegaya oo aan ma dawladda hore iyo wax samaystay aan garanay iyo suuq madow lagu sameeyay waxa kale meesha yira
artikalka dhahaya 140 iyo labo waa qodob oo dastuurka federaalka oo qeexaya dowladihii jirtay dowladaha jira waqtigii dastuurkan la ansixiyey 1 Agoosto oo shirweynihii xamar lagu qabtay lagu ansixiyey 1 Agoosto oo dastuurka federaalka ku meel gaarka hadda ah dowladihii ka hor jiray waxay ku sii dhaqmayaan dastuurka ay ku sii dhaqmayaan taas maxaa ku hoos qarsoon hadhow baa la iswaafajinayaa markii dastuurka uu dhammaado dib u noqoshadiisa dib eegidiisa ay dhammaato oo loo dhan yahay maaha in dad laga tago oo stateska laga tago qaybta kula ahaan lahaayeen markii ay dhammaato baa lala eegayaa yaa intaa la qoray la jaan qaadi kara maxaa ka siyaadaa maxaa ka baxsan dad aqoon u leh oo dhexdhexaada oo haddii loo baahdo international ay ku jiraan experts oo dowladda federaal ka yimi iyo aqoonyahan nagu badan dawaab ay yeelanay baa la isu keenayaa waa la iswaafajinaya uniform baa laga dhigay dastuur walba oo federaal oo dowlad ku meel gaar dowlad xubin ka ay leedahay duruufaheeda u gaarka wixii ku qortay iyada taqaan laakiin waxa aan ka hor imaanayn dastuurka federaalka oo weyn buu noqonayaa markaas sidii la iswaafajin lahaa taas laga heshiinaya markaa ka bacdi referendum loo qaaday inta ka horeysana waxa weeye wada shaqayn iyo wax u weelmoodo wada wadid iyo nidaamkii la qaato federaalka lagu wada dhaqmo iyo isku amar ku taagleen la'aan iyo cid aan lagu xadgudbin la'aan iyo dalkii inaan meel wax laga joogsan iyo caqabado cunaqabatayna hadda cunaqabatayn tacliimeed ba hadda Puntland ka socota in lagu sameeyo sidii mid cunaqabatayn hawada lagu sameeyay Marjubaland oo kale taasoo kala ka socota mana la aqbali karayo anaga Puntland iyo Soomaaliya labadaba siday maanta tahay qayb ku lahayn sida hadda ay tahay ka soo shaqeynay u joogna ka hadlayna ninna aan ku dhaafay waxaa lagu eedeeyay wasiirka tacliinta ee dowladda federaalka inuu waxba jiraan ka soo qaaday heshiisyadii ka horeeyay oo ay galeen prime ministeradii wasiiradii koowaad ee dowladda federaalka iyo wasiirkii tacliinta oo ka horeeyay wasiiradii tacliinta ka horeeyay مثلا بعد نقص وقعنا ولا بهاي إن لأوجاده تدكو صدق يلا باتنك أغسطس لبده يكون يستقال كي قال كعيه وحلو جاري هشيس هاي كلا ساحدين وقفتك السعودي دولة فدرال كهو قامين يي برايم منستر عبد الرشيد يوقفتك بقولنا عنو مركز هو قامين يي برايم منستر عمر عبد الرشيد وحل السعودي لبده وزير الله ونحرسته ولنتي كل نتي محوها قرحي شامو ها الله ونحرسته لبده ضبا نك تعليم السرع إبراهيم عدو iyo wasiirkii Ahmed Waayeel oo isaguna wasiirka tacliinta ahaa waxa lagu saxiixay education tacliinta markii laga eego waxyaalaha kale ka sokow in 25% deeqaha dibadda oo la helo maadaama waaga jaamacaduhu ay iska daciif ahaayeen xagga Puntland ay ka ahaayeen xamarna ayaan wax badan ay jirin meel kale aan jaamacad ka furnaynba in deeqaha la siiyo 25% Puntland ardada ka soo baxay iskuulada sare arda badan baa ka soo baxaysa heshiiskaas waagaas la saxay heshiiskii labaad oo wasiirka uu barnaamijka dabadda u tuuray waxaa ka mid ah heshiiskii la saxeexay 11kii waxaan leeyahay heshiiskii la saxeexay 11kii March 2013 oo ay kala saxiixdeen wasiirkii anigoo markaa madaxweyne ahaa iyo prime ministerkii markaa joogay Cabdi Faarax Shirdoon oo sii ayiday heshiiskii hore iyo wixii kale laga wada shaqeyn karo in la wada shaqeeyo muxuu ahay nuxurkiisu ah waxa ka dambeeyay heshiis kale oo ay kala saxiixdeen madaxweynihii hore oo Puntland Cabdiweli Gaas iyo prime ministerkii hore Cabdiweli Sheekh Maxamed oo dowladda federaalka prime ministerkeeda markaa ahaa oo lagu kala saxiixday in shahaadooyinka dugsiga sare ay ku aqoonsatay in Puntland shahaadada dugsiga sare ay ku aqoonsatay dowladda dhexe oo federaalka ay ku aqoonsatay inay yihiin shahaadooyin sharciya nidaam sharciya lagu bixiyay iyadoo ay bixisay curriculum ay ku bixisay ay leedahay sharciyadii looga baahnaa oo muxuu ahay laga filay ay leedahay wuxuu kaloo ku daray inuu warqad u diray wadamada dibadda loo aado scholarshipka sida Malaysia oo kale iyo muxuu ahay inay yiraahdo Sudan iyo kuwa dariskeena Yemen iyo Urdun iyo Oman masar inay ku jireen hadda ma hortaalo iyagana inuu yiri hala qaabilo shahaadooyinkaas waa la aqoonsan yahay jaamacada waa lagu gali karaaye hal lagu galo iyo heshiiskaas 14 waxa ka dameeyay kii 9 July 2015 oo wasiiradii markaa joogtay Khatar Bashir Ali ay ku aqoonsatay in shahaadooyinka Puntland ay yihiin shahaadooyinkii sax ah oo dugsiga laga baxay iyadoo wakiil keentay halka
certify gareeya endorse gareeya inay sax tahay halka oo Puntland wasaaraddeeda uu joogay oo markaas yani loogu danaynayo ardayda dibadda aadaysa waxa marka ugu dambeyntii aan sheegaynaa waxa weeye inay khasab tahay in labada level oo labada heer oo dawladeed oo Soomaaliya ka jira inay wada shaqeeyaan dawladda dhexe iyo dawladda xubinta ka ah danta dalka dartiis iyo nidaamka federaalka dhowristiis minister Goodax marka dhaqankiisa sidaas ah waxa uu yahay mid aan inta tixgelin oo ah mid ka hor imaanaya nidaamka federaalka lagu heshiiyay iyo wada shaqayntii laga rabay dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka iyo dawladda dhexe ummadda Soomaaliyeed u danayn laha markii sidaa la yiraahdo waxa weeye waxa mas'uuliyadda marka yay aadaysa marka mas'uuliyadda aadaysa loo meesha dalku madax buu leeyahay mas'uuliyadda waxay aadaysa marka inta marka maamulka dalka Soomaaliya u sarreysa waxa weeye madaxweynaha ay aadaysa madaxweynuhu soo dhex galo wax ka qabto haddii marka wasiirka muxuu tacliinta oo Puntland oo hadlay wasaaraddeena ka sheegtay anaguna aan maanta halka fadhino madaxweynaha waxa la gudboon inuu soo dhex galo arinta waxaan marka anigu wax kale ku darayn ugu yeeray madaxweynaha isaga wadanka madax ka ah arintan isay khusaysa in uu soo dhex galo wasiirkiisana uu siiyo amar iyo in la shaqeeyo dawladaha xubinta ka dawladda federaalka ardada Soomaaliyeed oo maanta ku cadilan nidaamkaas hadda muxuu ahaa hor istaagay oo cunaqabataynta tacliinta iyo waxbarashadii sare ah in uu ka waantoobo lagana hadlo wixii Puntland ay xaq u leedahay wasaaradda tacliinta iyo sidii awal xaq ahaan jiray oo hore intaas looga soo galay dastuurkuna oo wada qeexayona in xaqeeda uu soo saaro banaanka oo yiraahdo banaanka kamar waxaas xaq u leeyahay taas waxa looga fadhiyay isaga anigu inta xaq ku dari maayo madaxweynaha u sii dhiibay maayo laakiin waa ka warsugaynaa waana la gudboon tahay waana ku boorinaynaa inuu intaas sameeyo waxaan kaloo maanta halkan ka sheegaya waxa weeye xaq maaha mana la maqli karo mana loo dulqaadan karo in Soomaaliya oo maanta dhismaysa oo horusocod laga sugaayo 5,000 oo arday oo ka qalin jabiyay sanad dugsiyeedkii hadda tagay 2019 dugsiyada sare oo Puntland ay maanta meel cidla fadhiyaan oo jaamacadaha localka wixii gali karmaan wixii ku talagalay inay dibadda ku soo bartaan maanta in aadi karin shahaadadoodana ay ictiraaf haysan oo ay lumadiyada ugu horeysay 12 sano wuxuu baranayay oo nidaam sax ku baranayay oo inta soo socday inuu la yiraahdo sax maahid oo ma aqbalis anigu inaan saxiixo amagu inaan aqbalo oo sida anigu aan iraahdo sameeyo wasiir Goodax marka intuu 5,000 arday curiyaaminayo isaga imtixaanaadku qaada oo imtixaanaad sax galay oo hal qisha laga helin oo hal qalad aan laga helin oo si sax ku baasay oo intaas daba socday wuxuu ugu yeerayaa kuwii isaga laga xaday isagoo meel yarba ku maamula aan magaalooyin badan ba ayaan iskuul ka jirin in imtixaanka laga xado in ay halkaas oo kale isku biishwato taa lama aqbali karo waxaan ka rajaynaynaa in madaxweynuhu soo dhex galo arinta wax ka qabto waxaan kaloo marka u jeedinayaa waano waalidiinta ardada dhashay ardada laftigeeda iska dulqaata xaqiiq ahaan waxaan waa dhamaanaya iska maalmo yar ama abiilkaana la aqbali doona oo madaxweynaha soo dhex gali doona waa la sixi doona amaba hada waqti aan dhaweyn waxba isbedeli doona iska dulqaata jaamacadana waa yaalin waxa sii dhigan karnaan ka dhigta cidii dibadda niyada ku haysa intii awal ku qanacsanay halka wax ka barato ilaa mastered baa laga sameeyaa ta halkan ka dhigta anaguba maanta intaasoo shahaadaan haysanaa galaaskiisa lixaad baana toddoba xamar u soconay oo wado ayaan jirin oo diyaarad ayaan jirin baan u soconay waana ka noolahay waana hadda waanta joogna in la hadlayno wax la naqaan idinkuna saasoo kale aad tihiin qalbi jab ma jiro niyada adkaysta wax kalena yaan lagu fakerin in la sameeyo hal laga la warsugo wixii soo baxa baan arkaynaa wixii aan soo bixi waayana dad baa jira waa laga hadlayaa mana la isku dhaafay xukuumad baa jidha annaguna waa joognaayo xaggaasaan xisaabanahay laakiin anigu golahaana kulama jiro wasiirka baarlamaankana kuma wada jiro isku baarlamaan ma ahayn marka xildhibaanada jira golaha wasiiradana kula jira baarlamaankana kula jira iyagana doorkooda la rabaa inay qaataan waliba mid baa jira wasiiru dowladda tacliinta ah haddana magaalada jooga isaga ma aqaan wasaaradda inay sarkeen ma aqaan wax qaban doona isagana door baa laga rabaa hadii ilaha idmo marka intaas aan ku soo gaabinaya saxaafadeedkii maanta aan qabanayo ku taageerayay wasiirka
tacliinta dowladda Puntland ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in wadada fiican ay ku dhamaato baan ka rajaynaynaa insha Allah taala idinkuna sabr iimaan yeesha ardada iyo waalidiinteedu waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.